السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي أدبان إسلامية دمان أصحابك وحنا channelka warsamo bile waa anigii oo idinka soo salaamaya bartaydii aan ku lahaa youtube-ka warsamo bile runtii waxaan jeclaystay maanta inaan idiin soo gudbiyo video amba in yar oo information oo kooban oo ku saabsan hal abuurka ganacsiga iyo halka uu qofku muxuu ahaayey ka bilaabi karo. runtii ganacsigu maanta waxaan ognahay inuu yahay waxa ugu ballaaran ee waddanka guud ahaan caalamka oo dhan hadda si guud marka loo eego ka jira oo aad iyo aad runtii u fududaaday hadday noqoto online, hadday noqoto muxuu ahaayey alaab aad iyo la iibiyo producta amba service la bixiyo. runtii inaad gaadho dad customersa waayo qofku markuu business sameynayo waxa uu wax ku yahay waa customerska amba dee cidda uu wax ka iibinayo ee uu serviceka u qabanayo. runtii maanta sida lagu helaa waa si aad iyo aad runtii u fudud oo runtii uu qofku ku xiran tahay un dadaalkiisa iyo commitmentka uu muujiyo iyo halka uu wax ka bilaabo. runtii waxaan aad iyo aad u dhiirigelinayaa maanta dhalinyarta adduunka meel kasta ha joogaan online-ka lacag fara badan ka sameeyey, hadday noqoto youtube-ka, hadday noqoto upwork, hadday noqoto digital marketing, hadday noqoto cryptocurrency, hadday noqoto remote work oo muxuu ahaa daatooyin amba qofku shaqooyin kala duwan uu ku qaban karo iyadoo keliya loo baahan yahay qofku inuu maanta xirfadda u yaqaano wax alla waxay doonto ha ahaato, nooc alla noocay doonto ha ahaato. at least qofku haddii uu khibrad in uu leeyahay waxa uu ka heli karaa online shaqo uu ku heli karaa waana ku shaqayn karaa. marka runtii waxaan maanta aan dhiirigelinayaa oo aan aad iyo aad u buurinayaa dhammaan dhalinyarada ama ha noqdo qof graduate oo jaamacad soo baxay amba ha noqdo runtii qof imika qorsheynaya inuu muxuu ahaay ganacsi bilaabo. runtii waxaan leeyahay tallaabada uu qofku qaadayo unbaa muhiima. intaa qofka uu uga harsan inuu tallaabo qaado ayuunbaa uga harsan guusha ganacsiga. runtii video hore waan soo geliyey, video hore ku saabsan ereyooyinka amba dhinacyada kala duwan ee uu qofku ka bilaabi karo isagoo qofku naftiisa qiimeynaya oo runtii dooranaya qaybta uu ku wanaagsan yahay. video kale oo ku saabsan muxuu ahaa arrimahaasna aan runtii soo gelin doono maalmaha soo socda haddii la yidhaahdo. marka waxaan dhiirigelinayaa maanta oo aan leeyahay ha looga feejinaado oo runtii aad ha loogu soo baraarugsanaado online businesska. runtii aniga laftirkaygu lacaga badan baan ka sameeyaa amba ha noqoto upwork, amba ha noqoto web designing, ha noqoto ama data analysis ha noqoto. runtii dhinacyo badan ayaan ka sameeyaa waan runtii soo sheer garan doonaa exactly kolba inta aan sameeyo bishii amba sanadkii. inta kale waxaa jira dad badan oo runtii aaminsan maanta inuu ganacsigu adeeg yahay oo dee aad odhanayso iminka qofku keliya markuu soo galo social mediaha amba internetka furto waxyaaba entertainmentka horta runtii aad internetka ugu badan waa dhibaatooyinka koowaad ee qofka dib u dhigaya ee waqtigiisa xataa ka cunaya weeyaan. entertainmentigu waa wax qofku aan waxba ka faa'iideyn laakiin qofku just waqtigiisa kaga dhaafanayo. taasina runtii qofka wax meel gaadhsiinaya ma aha, wuxuu meel ku gaadhayo amba wax ku samayn karayna ma aha. runtii nafta inaan challenge gareeyo unbaa loo baahan yahay waayo naftu marnaba ma jecla wixii wanaagsan. adigoo just shaqo qaban kara oo muxuu ahaayey shaqada aad qabanaysa ay tahay tu aduu aad jeceshahay oo aanad ku dareemeyn daal amba karaahiyo aanad ku dareemeynin, runtii waxaan hubaa in wax badan aad ka samayn karaysid. xagga markay noqoto dhaqaalaha qofku wax ku bilaabi karo runtii waynu ognahay dhaqaalaha uu qofku ku bilaabi karo waa wax aad iyo aad yar, marka qaar la odhan karo waaba zero muxuu ahaay expense markuu qofku rabo inuu wax ku bilaabo. tusaale ahaan iminka youtube qofku inuu furto oo wax soo gelgeliyo oo dadka ka wacyigeliyo amba qofka dadka wax ka baro amba dadka wax ugu soo bandhigo kolba halkii isagu uu ka garanayo wax weeyaan. runtii qofku waxa alla waxay kusoo qorayso ma laha, just wax loo baahan yahay informationka aad soo gudbinayso inuu noqdo mid useful ah amba muhiim u ah dadkan ku daawanaya oo wax badan kaa faa'iideeyaan. because maanta adduunkana ku noolnahay intaasoo khibradood iyo intaasoo way aragnimo iyo intaasoo aqoon baa jirta. qof kasta wax buu yaqaanaa, qof wax kasta garanaya adduunka ma jiro. marka nin walba wuxuu kula wadaagayaa intii uu soo garanayay si aad wax uga faa'iidid. therefore anigu runtii waxaan dhiirigelinayaa oo aan leeyahay runtii maanta uu sidii hore adduunku ma aha. hadday noqoto xataa education qofku haddii aanu xataa khibrad lahayn uu ku shaqaysto waxa weeyaan uu baari karaa internetka khibradiisa isagu jecel yahay ayuu toos baaraya uu ku search garanayaa kabacdi markaa wuxuu helayaa
resources amba information ku tacalluqa waxyaabaha uu isagu doonayo. runtii markaa taasi waxay keenaysaa qofku inuu si fiican u barto, si fiican ay ugu daadegto, kabacdina uu bilaabo inuu ku shaqaysto amba uu lacag ku sameeyo. marka anigu markasta waxaan idinku taaganahay oon halkan idinkaga soo gudbinayaa in aan ku dhiirigeliyo dhammaan dhalinyarta ganacsigooda kala duwan iyo muxuu ahaa sidii ay u sameyn lahayn horumar nolosha ku saabsan, because waxa aad ugu qaadsan waa timeka. nolosha maanta waxaanu arkaa wax walba inay fududaadeen, wax walba ay hadda fingertips ay soo istaageen. qofku bal isaga kala dooranaya muxuu ahaa tallaabadu qaadanayo tan wanaagsanba sababtoo aan qofku waxba faa'iido u lahayn. marka runtii waxaan leeyahay laga faa'iidaysto waqtigu waxa maaha 1 year 2 years qofku intii uu halkaas ka fadhi lahaa wax laga yaabaa inuu wax badan ku achieve kareeyo. just kaliya wax looga baahan yahay dadaal. haddii qofku ilaahay tala saarto wuxuu sameynaya qofku runtii horumar inaba caadi ahayn buu sameynaya. markaan waxaan leeyahay dhammaan asxaabta ku xiran channelkayga ku xirnaada, subscribe ha la dhaafina. runtii anu halkan waxaan kusoo gudbinayaa muxuu ahaa sidii kolba horumar ku sameyn lahayn ganacsiyada kala duwan iyo waxa ka soo cusbanaada siyaabaha kala duwan ee ganacsi maanta loo bilaabi karo, loo sameyn karo, loo horumarin karo. runtii waxaan leeyahay halka channelkan ku wada socono, channelkan waa sii share gareeyo videogan aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin.